الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka mid ahaa xubnihii ururkii UFO waxaan ahaa waagaa macallin ka dhiga dugsiga sare ee Faarax Omar. waxaan doonayaa inaan wax yar idinka sheego taariikhda waxbarasho ee ummadayda. waagaan anigu ardayga ahaa idinku maanta waxaa laga yaabaa sekondariyaad tihiin, laakiin anagu marigaanu ahayn dugsiyada hoose iyo dhexe. waxa aan dareemayaa farqiga u dhaxeeya habka barbaarinta iyo waxbarashada. waa dhab sababaheeday leedahay oo kala duway, duruufo adag baa jira oo la soo maray. annagu se waaga iyagaasi waxyaabo badan oo maanta haysataan annagu maanaan haysan. iskuullada waanu u lugayn jiray, baabuurna lagu qaadi jiray ma jirin. marcaamaduhu loox baanu wax ku dhigan jiray, idinku imika malaha kombiyuutarra wax ku dhigataane. waa jaanis ah hesheen oo wax ilaahay lagu mahadiyo, waana wax wakhtigu keenay weeye. idinkagama masayrayno, laakiin waxaannu leenahay sida ugu waxtarka badan leh uga faa'iidaysta oo ha ku ciyaarina tiknolojiyadan maanta wax walba idiin soo dhowaysay oo qaybteeda xun ka durka, qaybteeda faa'iidada leh ee wanaagsanna isticmaala. waynu ognahay oo maanta waxaa laga xukumaa adduunyada hawada oo dalal aynaan weligeenba arag iyo dad aynaan maqal ayaa fikradahooda iyo aragtiyadahooda aynu hellaa oo aynu haddii alla kuu royay had iyo jeer inagula jira meel kastoo aynu joogno, guryaheenna, iskuulladeenna, musqulaheenna. baalkan yar la yidhaahdo mobilka aynu sidanaa waa kayna wareerinaya. dad islaama baynu nahay, ka digtoonaada, dhibaatadiisaa badan, waxyeelladiisa ka badan ee laynoo soo marinayo hawada. ka digtoonaada oo ku dhaqma dhaqanka islaamkaa ee laydinku dhalay, ee waalidkiinna haystaan, ee nasiibka u yeelateena ilaahay idinku manaystay. intaasi waa taa. waxaan leeyahay taariikhdu waxaa la yidhi taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda. taariikhdu dadkay bartaa dunida waayaheeda. adduunyadu waa shalay, maanta iyo berrito. waa saddexdaa wax u dhexeeya, wax kaloo dheeraadii ma jiraan. waa shalay oo waa markaan annagu joognay, waa maanta oo idinku joogtaan oo arday tihiinoo wax baranaysaan, iyo berrito oo laydinka sugayay wixii aad barateen inaad dalkiiyo dadka ku anfacdaan. waxaan intaa ku darayaa ururkii UFO waxa uu ahaa dad dhallinyaro ah oo waagaa dalkooda dib ugu soo laabtay, oo u soo laabtay in ay wixii ay ka soo barteen dabadaha iyo cilmi wixii ay soo kororsadeen inay dadkooda iyo dalkooda ku anfacaan. markii ay yimaadeen ee ay dabeedna arkeen dhibaatada dalkooda haysataa, tashi bay galeen, way tashadeen. waxay yidhahdeen war maxaanu dadkeenna u qaban karraa? si mutadawacnimo ah bay u fakireen. waxay dabeedna doonaan inay adeegyada bulshada ee daayacan ay ka caawiyaan dadkooda wixii ay u qaban karaan, dadkoodana ay abaabulaan. taana daalinkii waagaa jooga ee dalka xukumayey siyaad barraa la odhan jiraye ayaa waxa uu arkay inay halis ku yihiin ayuu u arkay. waxaanu yidhi dadkii aan doonayay inaan laayo ayuu iyagu noolaynayaan. sidaasaanay dembi ku galeen dadkaasi inay dadkooda wax u qabtaan oy nooleeyaan oo ay u shaqeeyaan oy ka saaraan dhibaatada haysataa. oo ay u arkeen in dawladdii waagaa xukumaysay aanay dan ka lahayn, doonaysana inay dadka deggan ka beddesho, dalkana iyadu ay yeelato, dadkana la ku abuurto. xaqiiqaduna taasay ahayd. arrintaa iyadaa markii uu dhibsaday waa la isgalay, dabeedna annaga xabsi baa naloo taxaabay. siday qoladii iga horraysa sheegtayba haddii aanay ardaydii waaga aanu wax u dhigi jirray iyo dhallinyaradii suuq joogga ahaa ee dareemay ama gartay waxaan u samaynaynaa inay yihiin dantooda, haddaanay kicin maanta mamaynaan wada hadalleen. ilaahay baana qadaray, waxaana loogu talagalay inta iyadaa la xidhayba in la dilo. ilaahay baase naga badbaadiyey. waxaana sabab uga dhigay ardaydayadii iyo dhallinyaradaydii oo maalintaa kacdoon sameeyey oo u bareedhay
oo u bareeray ciidamadii markaa ugu weynaa ciidamadii ugu awoodda weynaa qaaradda madowga afrika siiba geeska afrika alxamdulilah maanta waxaanu joognaa barwaaqo waa dabo dhibaatooyin way jiraan su dhaqaalaa jirta tu horumar la'aanaa jirta tu shaqo la'aanaa jirta waxaasoo dhimi waa waxyaaba jira laakiin waa wax laga gudbi karo waxaana inaynu ka gudbano waxay ku xidhan tahay fakirka iyo aragtida dhallinyarada maanta joogta ay wakhtigoodii tahay inay ummaddooda ka saaraan dhibaatada intiina maanta wax baranaysa ee u heshay nasiibka inay wax barataan ee da'doodii wanaagsanayd joogta waxaan leeyahay u kaca dalkiinna oo garta dalkiinna iyo dadkiinnu qiimaha ay leeyihiin waagii annagu aanu yaryarayn waddaniyadana lagu barbaarin jiray waxay ahayd inaannu dalkayaga jeclaanno dadkayagana u hiilinno waxaan doonayaa in aan halkan idinka sheego in yar oo ah habkiina loo barbaariyo waddaniyadana lagu abuuray mid ka mid ah iskuullada annagoo joognaba naloo iman jiray nin fanaanihii noo iman jiray axmed maxamed good baa la odhan jiray shimbir baana lagu naanaysi jiray waxau ahaa nin aad iyo aad muwaadin ah intuu noogu yimaado odhan jiray hees baan qaadaya buu nakaxan jiray idaacadda ayuu odhan jiray iga daba qaada hees ka mida ayaan bayd ka mida doonaya inaan idin maqashiiyo si aan idinkana idinku abuuro waddaniyaddii annaga waagaa nagu abuuray shimbir anana shimbir idin noqonayay dhegaysta magar bay maqlaysaan waa yahay heesta waxaa la yidhaahdaa magaceeda waddankayga wanaagsan waddankayga wanaagsan waxa uu yidhi axmed maxamed good ilaahay naxariista jannaha ka waraabiye codkiisii baan doonayaa inaan mid la mida anna qaado nin aad cod wanaagsan buu ahaa sidayda anna heestii baan qaadayaa dhallinyaraduna wayla daba qaadayaan dhegaysta waddankayga wanaagsan waddankayga wanaagsan inaan ku waaro inaan ku waaro warshadow sameeyoon wax walba uu dhammeeyo hee ayaa wacad ku qaaday ayaa wacad ku qaaday waddankayga wanaagsan idina meela qaadaysaa mar kale waa yahay waddankayga jeclaanaynaa waddankayga wanaagsan waddankayga wanaagsan inaan ku waaro inaan ku waaro warshada uu sameeyo wax walba uu dhammeeyo ayaa wacad ku qaaday ayaa wacad ku qaaday waddankayga wanaagsan